maxaad ka taqaanaa dalkaaga hooyo Soomaaliya? Halka ay dhacdo Soomaaliya iyo xuduudaheeda. Soomaaliya waxay ku taallaa geeska Afrikada Bari. Waxaa xad la leh 3 waddan oo kala ah Itoobiya, Jabuuti iyo Kenya. Dhinaca bari waxaa ka saaran Badweynta Hindiya, dhinaca galbeedna waxaa ka xiga Itoobiya, dhinaca koonfureed waxaa ka xiga Kenya, dhinaca waqooyi waxaa ka xiga Gacanka Cadan, dhinaca waqooyi galbeed waxaa ka xiga Jabuuti. Soomaaliya waxay leedahay 3,333 kiiloomitir². Bedka iyo dadka. Bedka ama masaaxadda Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 638,000 oo kiiloomitir². Dadka ku nool Soomaaliya tirkoob rasmi ah laguma sameyn muddo ku dhow 30 sano. Sidaa darteed lama sheegi karo tiro go'an. Dhul beereedka dalka Soomaaliya. Dhulka dalka Soomaaliya ee ku habboon beerashada waxaa sanadkii 1985 lagu qiyaasay dhul ay baaxaddiisu gaarayso 8 milyan oo hektar, taas oo u dhigma 13% bedka dalka oo idil. Balse sababo badan awoodood dhulkaasi ma noqonin mid la beerto oo laga faa'iideysto. Sanadkii 1984 waxay Soomaalidu beeratay 1 milyan oo ka mid ah dhulkaasi beerashada ku habboon. Taasi waxaa ka sii daran in tirada dhulka ee sanad walba sida joogtada ah loo beerto ay tahay mid kuwaasi aad uga sii yar. Dhulkaasi oo intiisa badan ku yaala koonfurta dalka waa dhulka u dhow labada webi amaba u dhexeeya labada webi Jubba iyo Shabeelle. Waxaa kaloo jiray dhul beerashada ku habboon oo ku yaala gobollo badan oo dalka ka mid ah, inkastoo beerashada dhulkaasi ku xiran tahay roobabka. Dalagyada ka baxa dalka Soomaaliya. Soomaaliya waxaa ka baxa dalagyo badan sida galleyda, masagada, digirta, khudaarta noocyadeeda kala duwan, bariiska, suufka, sisinta iyo kuwa kale oo badan. Gobollada ay dalagyadani ka baxaan waxaa ka mid ah Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Baay, Bakool, Mudug. Waxaa aad ugu baxa digirta iyo qaraha gobolka Mudug iyo noocyo ka mid ah khudaarta gaar ahaan bariga iyo koonfurta gobolka. Waa ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warbixintii koobneed aan uga hadlaynay dalkeena Soomaaliya. La socod wanaagsan qaybta dambe insha Allah.